السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ميلول بعد كل جوكتان اسقصو نقض وعن وحيسا إلهي سبحانه وتعالى ميلول بعد كل جوكتان هايدن كوة حفتير دمانتين وقتيقو ووحا ugu muhiimsan waxa ugu qiimaha badan ee aan haysano markaad disho waqtigaaga waxaad dishay fursadahaaga guusha ha ku luminin waqtigaaga iyo tamartaada iyo enerjigaaga inaad ku qanciso dadka inay ku fahmaan iyo in aad isku sharaxdo cidaad tahay waqtigu aad ayuu uga qiimo badan yahay inaad isku daydo inaad dadka isku cadayso waqtigu isagaa ku xusi doona ee raadkaaga dig dunida dhaxal wanaagsanna uga tag bulshadaada iyo bulshada caalamkaba waqtigu waa bilaash oo waa free wax lacaga lagaa qaadi mayo laakiin waa shay aadan kaydsan karin ma awoodid inaad cadayso laakiin waad isticmaali kartaa ma xifdisan kartid laakiin waad ka faa'iidaysan kartaa hal daqiiqo ee aad iska lumiso weligaa dib kugu soo noqon mayso ha ku luminin waqtigaaga wax dib u dhac kugu ridaya aadna waxba ka bedeli karin dib u eeg arrimahaaga oo u samee si ka wanaagsan waqtigan waqtigu wuu ka qiimo badan yahay lacagta waad heli kartaa lacag badan laakiin ma helaysid waqti dheeraad ah oo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa yiri inaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walba waxay ku jaango-an yihiin qadar uu ilaahay ugu talagalay qadarkaas ayaadna adiguna ku jaango-an tahay oo waqti ayaad leedahay u dhaqso riyadaada oo u degdeg riyooyinkaaga adiga ayay ku sugayaan inaad u howlgasho laakiin ogow weligaa kuma sugayaan waqtigaagu wuu xadidan yahay ha ku luminin inaad u noolaato nolosha cid kale ha ku luminin waqtigaaga arrimo masayr ku saabsan ee aad ka masayrsan tahay qof kale guuluhu uu gaaray intaad maskaxdaada kaga fakari lahayd enerjina ku bixin lahayd adigaa unique adiga waqti isgeli oo waqtigaaga ka faa'iidayso waxay dadku ku andacoodaan inaysan waqti haysanin iyo in waqtigu ku yar yahay halka ay taajirku iyo faqiirkuba ay wada haystaan 24 saacadood allah waa caadil cid walba waxa kaliya uu u simay waa waqtiga uuna wada siiyay 24 saacadood ma aha dhibtu waqti la'aan ee waajiho la'aan uusan garanaynin qofka meeshuu u socdo iyo meeshuu ka socdo taas weeye dhibaatadu ee dhammaanteen waxaynu wada haysanaa 24 saacadood ee dhalinyaroy markii bulsho la qiimeynayo waxaa bulshada lagu qiimeeyaa dhalinyaradeeda waqtigeeda meeshay ku bixinayaan horumarka ay soo saarayaan horumarka ay samaynayaan ay waqtigooda kaga faa'iidaysanayaan ha ka mid noqonin dhalinyarada tiraahda sawfa nafcalu daalika qadan arrintaas arbiri ayaanu samayn doonaa ma garanaysid biri waxa dhici doona ma garanaysid biri inaad gaaraysid ma garanaysid inta sano iyo inta daqiiqo iyo inta minid ee ku dhiman maalin walba ayaad aragtaa qof yaroo dhalinyaro ayoo lasii jiidayo dunida ka faaruqay waqtigaaga minidka aad haysatid iyo sekaka aad haysatid maantay kaga faa'iidayso social media ayuu waqtigaaga waxaan waxba kuu taraynin waxba kuu soo kordhinaynin faa'iido aadan ka helaynin aad ku lumisid balse kaga faa'iidayso waa seef laba af leh kaga faa'iidayso meeshaad khayr ka helaysid waxna aad ka kordhisan kartid energy iyo tamarna ku gelinaysa waxaan idinka tagayaa dhammaantiin fi amaanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh